Asalaamu calaykum dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan. Videogan waxaan ku sharaxayaa qofkii raba software engineering iyo codingka inuu barto, wadooyinka uu raaci karo iyo waxyaabaha ugu fudud ee uu baran karo. Marka ugu horeysa, software engineeringka shaqooyinka la qabto waxaa ka mid ah inaad softwareki design gareyso. Markaad design gareyso waa inaad markaa test gareyso inuu sidii la rabo u shaqeynayo. Kabacdi deployment ayaad ku sameyneysaa, production ayaad lagu deploy gareynayaa. Wixii markaa ka dambeeyana waa maintenance ayaa lagu sameynayaa softwareki. Maintenance waxa weeyaan mar walba wixii isbedel u baahan in la bedelo ayaa la bedelayaa, update lagu sameynayaa. Marka lagu sameeyo update-na mar walba wuxuu soo marayaa stepska hore aan soo sharaxnay. Waa in la design gareeyaa marka hore requirementskii ama wixii la rabay in la bedelo la ogaadaa, lasoo ururiyaa. Kabacdi waa in la design gareeyaa, softwarekii la qoraa, la test gareeyaa, kabacdi la deploy gareeyaa. Marka inta badan shaqooyinka la qabto waxay u badan yihiin intaas. Waxaana inta badan softwareka marka software la sameynayo wuxuu noqon karaa desktop application ama web application ama app ama game ayuu noqon karaa. Laakiinse waxyaabo badan ayuu hadda software geli karaa oo mashiino badan sida baabuurta, mashiinadan caafimaadka ayaa dhammaantood ku shaqeynaya software. Haddaan laakiin sharaxaadda ku koobno, matalan qofka hadduu web application sameynayo wuxuu u kala qaybsamaa web applicationka saddex qaybood. Qaybta ugu horeysa waxaa la dhahaa front end, waa qaybta uu qofku markaa arkayo. Qaybtaas waxaa lagu qoraa luqadda la yidhaahdo HTML5, CSS iyo JavaScript oo programming language ah. Marka qofkii raba inuu qaybtaas ku noqdo expert wuxuu baranayaa saddexdaas luqadood. HTML-ka CSS iska fudud yahay, JavaScript ayaa programming language oo u baahan waqti inaad geliso. Saddexdaa markaad barato markaa waxaad noqonaysaa waxa la dhaho front end developer ayaad noqonaysaa. Waad ku shaqeyn kartaa, dad baa intaa keliya ku shaqeeya. Laakiinse matalan markaad form oo kala buuxinayso website-ka log in dhahdo ama aad buttonka ku dhufato, wuxuu tegayaa waxa la dhaho back end. Marka application program ayaa shaqeynaya. Programkaas waxaa lagu qori karaa Python, C#, Java, JavaScript. Qofkii marka intaa programkaas qori kara, the back end programka qori kara waxaa la dhahaa wuxuu noqonayaa back end developer. Marka uu ku shaqeyn karaa, wuxuu qof ku shaqeyn karaa back end developer isagoo ah. Dad baana intaa gooni keligood ku shaqeeya. Macluumaadka markaad matalan formkii buuxiso ama emailkii iyo passwordkii aad ku buuxiso website-ka eed buttonka ku dhufato, backend programka backend ku shaqeynaya ayaa markaa wixii inuu saxay in kale check gareynaya. Laakiinse programkaas wax macluumaad isagu ma hayo. Macluumaadka wuxuu kasoo qaadanaya database-ka. Marka database-ka waxaa jira database kala duwan, Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL. Marka waxaa jira database kala duwan, laakiinse intooda badan waxay ku wada shaqeeyaan luqadda la dhaho SQL, Structured Query Language ayay ku shaqeeyaan. Marka qofkii raba inuu database ku shaqeeyo waa inuu bartaa luqaddaas. Wuxuuna noqon karaa markaa database administrator ama database developer. Qofkii saddexda area wada garanaya, inta badanna hadda shaqooyinka qofkii software engineer ku shaqeynaya waa laga doonaya inuu barto saddexdaas. Mana adka barashadoodu, wuxuu noqonayaa waxa la dhaho full stack developer ayuu noqonayaa. Wuuna ka chance badnaanaya qofkii hal area keliya garanaya. Marka qaybtaasi waa sida uu u kala qaybsamo website-ku. Shaqooyinka lagu shaqeeyo ama roleska wuxuu qofku noqon karaa front end engineer, back end engineer, full stack engineer. Waa markuu saddexdii areaba garanayo. Qofkii raba inuu tester noqdo ama quality assurance wuxuu noqonayaa QA engineer. DevOps engineers ayaa jira iyo security engineer iyo qaar badan oo kale. Marka kuwani waa roleska uu qofku ka shaqeyn karo markuu barto software engineeringkii. Luqadaha hadda ugu fudud ee la barto aadna popular u ah ama caan u ah waxa weeyaan waa Python programming language. Maaha khasab inuu marka qofku hadhowto Python ku shaqeeyo, laakiinse waa luqad fiican inuu qofku ku bilaabo. Qofku intuu Python barto ayuu hadhowto markaa luqad kale sii baran karaa sida C# ama Java.
laakiin qofkii la rabo inuu data scientist noqdo ama artificial intelligence ama robots inuu program gareeyo inta badan python waa inuu bartaa. Laakiin khasama inaad python ku shaqayso waxay kuu fududeynaysaa hadhowto inaad luqado kalena barato. Qofka marka pythonka sababta ay u fiicantahay inuu python ku bilaabo waxa weeyaan marka ugu horeysa codeka uu qorayo ayaa ka fudud luqadaha kale, marka isla problemka ayaad ku xallin kartaa code ka fudud oo ka gaaban ka kale ee luqadaha kale la qorayo. Marka you can solve complex problems in less time with fewer line of code. Ta labaad waa high level language oo waxyaabo badan oo computerka uu adigu kuu sameynayo luqadda ayaa jira oon adigu aad u baahan inaad samayso. Huge community micnaheedu dad badan ayaa isticmaala. Taas waxay kuu fududeynaysaa marka inaad si fudud ku hesho wixii support aad u baahan tahay online. Cross platform waxa weeyaan programkaad qorto wuxuu ku shaqeynayaa operating systems kala duwan sida Windows iyo Mac OS iyo Linux. Marka hal program ayaad qoraysaa, kaas ayaad markaa ku run garaynaysaa operating system kala duwan. Waxaa kaloo sababta kaloo loo barto Python wuxuu yahay large ecosystem ayuu leeyahay. Micnaheedu waxa weeyaan yani dad badan ayaa waxay qoreen libraries iyo modules aad adigu markaa isticmaali karto oodan u baahan inaad dib u qorto. Marka dad ayaa soo qoray oo lasoo test gareeyey, kaasun baad isticmaalaysaa marka. Micnaheedu marka waxa weeyaan waxa kuu fududaanaysa shaqadaadii iyo wixii aad qabanaysay ayaa kuu fududaanaya. Haddaynu markaa sii sharaxno Pythonka sababaha loo barto, horta waa multi-purpose language. Taas micnaheedu waxa weeyaan meelo areas kala duwan ayaad u isticmaali kartaa. Web development hadday noqoto, artificial intelligence, computer graphics, software testing, big data. Data science waa luqada hadda ugu caansan ee loo isticmaalo. Aad buuna maadaama uu hadda popular noqday, waxaad ku shaqaysan kartaa salary fiican ama mushaar fiican ayaad ku heli kartaa. Marka ereyooyinkan oo dhan ayaanu mid mid u dulmaraynaa. Marka ugu horeysa waa cross platform, horaan usoo sharaxay. Halkii program eed qortay ayaa waxaad ku run garayn kartaa Mac OS ama Windows. Marka uma baahnid inaad programyo kala duwan u qorto haddaad matalan program aad u qorayso operating system kala duwan. Web development waa loo isticmaalaa, waxaana la isticmaalaa frameworks Django la dhaho ama Flask. Waxayna maadaama frameworkska lagu soo qoray Python, barashadooda way kuu fududaanaysaa. Markaad Python programming language-ka barato, si fudud ayaad markaa frameworkskan u isticmaali kartaa. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa artificial intelligence. Aad buu caan u yahay artificial intelligence. Waxa weeyaan program ayaad qoraysaa, programkaas ayaa wuxuu qabanayaa waxyaabo caadi ahaan u baahan inay dadku qabtaan, sida matalan in qofka wejigiisa la garto, visual perception, speech recognition, codka qofkiisa in la garto, go'aamo in la gaadho. Marka programka ayaa la barayaa siduu go'aan ku gaari lahaa. Waxaana loo isticmaalaa markaa libraries kala duwan oo Python lagu qoray ayaa jira, sida scikit-learn, Keras oo TensorFlow. Markaad programming language-ka barato, librarieskan ayaad baranaysaa sidaad u isticmaali lahayd. Waxaad ku shaqaynaysaa markaa waxaad qoraysaa programyo computer systems loo isticmaalayo artificial intelligence. Computer graphics inta badan looma isticmaalo Python, laakiin haddaad rabto matalan inaad desktop application samayso ama game, waxaad isticmaali kartaa matalan library la dhaho Pygame, ama desktop application haddaad qorayso Tkinter mid la dhaho ayaad isticmaali kartaa. Marka waa lagu qori karaa, waa lagu samayn karaa desktop applications. Software testing, hadduu qof inta badan software engineerska markay qoraan softwareki waxay u dhiibaan testers ama quality assurance department la dhaho. Kuwaas ayaa marka waxay sameynayaan, waxay eegayaan inuu programkaas sameynayo wixii loogu talagalay. Marka waxa weeyaan they will validate and verify the requirements. Marka hore programka la sameynayay waxaa jiray wax la dhaho technical requirement oo looga baahan yahay programkaas inuu kasoo baxo, inuu fuliyo. Marka waxay test garaynayaan iyagoo ama hubinayaan iyagoo markaa programyo isticmaalaya ama libraries
ama frameworks sida PyTest oo isticmaalaya ayay markaa test garaynayaan codekii uu soo qoray software engineerku. Big data hadda kambaniyadoo dhan waxay ururiyaan data aad u badan. Matalan hadda mar walbood Google-ka wax ka raadiso, Google kambaniga Google way save garaynayaan informationkaas. Marka minuteki waxa laga yaabaa inay millions or billions of lines of code ama data inay save gareeyaan. Hadhowta markaa programyo ayaa jira la qoro. Programyadaas oo markaa fiirinaya datada kasoo saaraya information muhiim ah. Matalan qofkan muxuu jecel yahay trends association inay dad waxyaabaha kale oo qofkani jecel yahay ma jira. Marka datadii ayaa loo programyo waxa la qorayaa ku analyze garayn kara big data aad u weyn ama u badan analyze garayn kara. Marka libraries ayaa jira iyagana sida PyDub ama Dask oo la isticmaalo oo iyagana Python lagu qoray. Scripting ama automationka waxa weeyaan inaad matalan qorto program sida haddaad information ururinayso ama aad program faylal badan aad meel ka qaadayso meel kala geynayso ama email aad dirayso notification email ama reporting waxaad qori kartaa marka Python program ayaad qori kartaa isagana si fudud marka intaa kuu sameynaya. Data science-ku waa meelaha hadda ugu muhiimsan ee Python-ka loo isticmaalo. Data science-ka marka waxa weeyaan datadii la ururiyey ayaa markaa la eegaya la analyze garaynaya waxaana laga soo saaraya marka information muhiim ah. Informationkaas marka kambaniga go'aamo ku gaaraya uu leeyahay matalan bishan waxaa la iibsaday intaasoo shay bisha soo socota aad buu hoos ugu dhacay marka maxaa sababta uu hoos ugu dhacay in itemkan la iibsado bishan maxaa keenay wixii marka datadii la ururiyey ayaad markaa la baaraya ama la analyze garaynaya. Library badan baa loo isticmaalaa NumPy, Pandas waxaan oo dhan marka waxaa lagu qoray waa library Python lagu qoro uu qofku si fudud u baran karo markuu barto luqadii programming language-kii. Sidaan hore usoo sheegay kambaniyo badan ayaa isticmaalo oo waaweyn sida Google, IBM, Facebook, Python. Marka sababtaas waxay caan ka dhigtay oo ka dhigtay in markaa lagu shaqaysto in lagu shaqaysto salary fiican. YouTube oo kale, Instagram oo kale waxaa lagu qoray matalan Python. Marka sababaha caan ka dhigtay waxaa ka mid ah maadaama kambaniyadan waaweyn ay isticmaalaan Python-ka. Sababaha ugu muhiimsan ee loo barto waxa weeyaan oo kale aad bay u fududahay barashadiisu. Matalan haddaan tusaale ka soo qaadno markaad rabto inaad ereyga hello world haddaad rabto inaad saddexda xaraf ugu horreeya inaad ka soo saarato C# waxaad qoraysaa informationkaas marka codekaasaad qoraysaa C#. str-ku marka waa variable. JavaScript-na waxaad qoraysaa codekaas. Python-na saad aragtaan codeka la qoray aad ayuu uga yaryahay. str oo variable-ki ah iyo from 0 to 3 ayaad oranaysaa ka bilow 0 ilaa 3 marka waxaad soo qaadaysaa saddexda xaraf ee ugu horeeya. Marka saad u aragtaan aad bay u fududahay codeka la qorayo marka loo barbar dhigo luqadaha kale. Sida loo qorayna aad ayay u fududahay waa sidii qofki isagoo Ingiriis ku hadlayo kale. Matalan JavaScript haddaad qofku uu sameynayo variable oo uu markaa ku assign garaynaya magaca Bob kabacdina uu printer garaynayo variable-kaas codekuu qorayo waa labada line. Laakiinse Python saad u aragtaan aad buu uga fudud yahay. Waxaad oranaysaa name is equal to Bob kabacdi print name marka wuxuu print garaynayaa Bob. Dad badan ayaa isticmaala hadda software engineerska, dadka xisaabta ku shaqo leh, mathematicians, scientists, data analysts oo dadka datada analyze gareeya. Iskuulada aad baa hadda loo isticmaalaa Python. Jaamacadaha sidoo kale network engineerska waxay u isticmaalaan wax la dhaho automationka, accountantska laakiinse dad badan ayaa isticmaala. Qofka raba inuu marka shahaado soo qaato wuxuu ku bilaabi karaa shahaado Microsoft ay bixiso oo la dhaho MTA, Microsoft Technology Associate. Marka waa shahaadooyinka ugu horeeya lagu qofki raba inuu markaa galo software engineering-ka shahaadooyinka lagu bilaabo MTA. Shahaadooyinkaasa marka lagu bilaabaa. Shahaadooyinkaas marka waxay kala leeyihiin matalan hadduu rabo qofku inuu noqdo full stack developer waxaa fiican inuu soo qaato dhowr shahaado kala duwan. Marka
exam 361 kaasu waa software development fundamentals ayaad baranaysaa. Marka luqadda aad ku baranayso waxay noqon kartaa Python, waxay noqon kartaa JavaScript, C Sharp. Ayaad ku geli kartaa imtixaanka midii aad garanayso. Markaa qofkii raba inuu web developer noqdo hadhowta wuxuu ku dari karaa web development fundamentals oo ah isna exam 363. Qofkii raba inuu .NET developer noqdo sida C Sharp oo kale wuxuu qaadan karaa isagana examkaas u geli karaa. HTML qofkii raba inuu HTML ku develop gareeyo apps, HTML5 app development inuu sameeyo qofkii raba isna shahaadadaas soo qaadan karaa. Testingkana isagana waxaa jira shahaado loo soo qaato. Khasab ma ina shahaadooyinkan oo dhan uu qofku soo qaato. Qofkii raba full stack inuu developer inuu noqdo saddexda shahaado ee aan hadda madoobeeyey ayaa muhiim ah. Database-ka waa muhiim si uu u fahmo markaa macluumaad sida loo geliyo database-ka iyo sida looga soo saaro, kabacdina uu barto programming language sida Python oo kale. Taas marka wuxuu ku dari karaa HTML and CSS-ka inuu barto. Waad mahadsantihiin. Insha Allah, asalaamu calaykum.